kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo adduunka ka joogtaan jimco wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn ee wargeysyadu ay ka qorayaan ciyaaraha kubadda cagta. sheekooyinka aan soo qaadi doono waxaa ku jira saxiixa cusub ee kooxda Arsenal, Fabio Vieira iyo mushaarka uu ka qaadan doono kooxdaasi oo muran badan ka dhaliyay baraha bulshada. heshiiskii Sadio Mane ugu biiri lahaa kooxda Bayern Munich oo markaa meel fiican maraya iyo saxiixiisa oo lagu dhawaaqi karo goordhow. Cristiano Ronaldo oo isagu markaa la leeyahay waxa uu isaga tagi karaa xagaagan kooxda kubadda cagta Manchester United. iyo sheekooyin kale ayaan soo qaadi doonaa saaxiibayaal, balse inta aanan bilaabin muuqaalkeena waxaan idinka codsanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan oo aad sii gudbisaan. sidoo kale saaxiibada nagu cusub ee markii ugu horreysay soo booqda bartaana waxaan ka dalbanaynaa in ay subscribe inoo saaraan barteena YouTube-ka. mahadsanidin. aynu ku bilownay ciyaaryahanka la yiraahdo Fabio Vieira ayaa markaasi la xaqiijiyay inuu ku soo biirayo kooxda kubadda cagta Arsenal kadib markii goor sii horeysay ay naadiga Porto xaqiijisay in ay xidigan la yiraahdo Fabio Vieira ka iibisay naadiga reer London ee Arsenal. Porto waxay ku dhawaaqday in 22 sano jirkan qadka dhexe ka ciyaaray ee Fabio Vieira ay markaa ka iibisay Arsenal iyadoo markaa xidigani uu u dhaqaaqayo dhinaca kooxda Gunners. laakiin dabagal ay sameeyeen wargeysyada waaweyn ee Ingiriiska isla markaana ay soo eegeen mushaharkiisa uu Arsenal ka qaadan doono iyo waxqabadkiisii ciyaaryahankan kal ciyaareedkii hore ayaa markaasi kaafiye kala dheeri amaba waxaan isu dhigmin. wargeysyadu waxaa markaasi ay leeyihiin ciyaaryahankan xilli ciyaareedkii hore waxa uu ku lug yeeshay 23 gool, waxa uu caawiye ka ahaa 16 gool, 7 goolna shabaqa ayuu gaarsiiyey 39 kulan oo uu u ciyaaray tartamada kala duwan kooxda kubadda cagta FC Porto kal ciyaareedkii dhamaaday. waxaana 23kaasi gool isagoo ku lug leh haddana Arsenal uu ka qaadanaya mushaar aad u hooseeya. jaradda Mirror ee ka soo baxday Ingiriiska waxay warinaysaa in aysan isku dhigmin waxqabadka ciyaaryahankan iyo mushaarka uu Arsenal ka qaadan doono. waxaa la warinayaa 4 toddobaad marka uu u ciyaaro kooxda Arsenal in uu markaasi qaadan doono mushaar dhan 111,000 oo ganiga sterlinka ah toddobaadkii. haddii markaasi isbuucle markaa laga dhigo mushaarkiisana waxaa markaasi uu ka qaadan doonaa kooxda waqooyiga London ka dhisan 25,000 oo pound. ciyaaryahankan ayaa markaa ka mid noqon doona xidigaha ugu mushaharka yar kooxda kubadda cagta Arsenal, waxaana uu qalinka ugu duugi doonaa kooxda Gunners heshiis markaasi gaaraya 5 sanadood sida warbixinadu ay tilmaamayaan. Arsenal ayaan si rasmi ah u xaqiijin saxiixa ciyaaryahankan oo laga sugayo in saacadaha amaba waqtiyada inagu soo aadan ay ku dhawaaqaan, maadaama kooxdiisii hore ee FC Porto ay markaasi xaqiijisay in 22 sano jirkan ay ka gadeen kooxda kubadda cagta Arsenal. sheekooyinka Vieira ayaana markaa banaanbax iyo hadalhayn ka dhex abuuray baraha bulshada, waxaana dadku ay intooda badan leeyihiin isuma dhigmaan heshiiska uu ciyaaryahankani ugu biirayo kooxda Arsenal waxqabadkiisa iyo mushaharka uu ka qaadanayo kooxda ka arrimisa garoonka Fly Emirates. Arsenal ayaa markaasi suuqa ku gacan sareysa iyadoo ciyaaryahanka la yiraahdo Nketiah ay markaasi ka saxiixanayaan heshiis cusub oo waqti dheer ah. Fabrizio Romano oo wax ka qora dhanka suuqa kala iibsiga waxa uu leeyahay Nketiah waxaa markaasi uu qarka u saaran yahay in uu Arsenal u kordhiyo heshiiska isla markaana uu u saxiixo Gunners heshiis gaarsiisan ilaa 2027. goordhow ayuuna leeyahay heshiiskiisa qalinka ayaa lagu duugi doonaa oo Nketiah waxa uu kordhin doonaa sii joogistiisa Arsenal ilaa sanadka 2027. Arsenal oo dhameystiraysa saxiixa Fabio Vieira, Nketiah oo markaasi heshiiska u cusboonaysiinaya heshiiska ay ka shaqeynaysa sidii ay ku soo xirogelin lahayd Gabriel Jesus iyo iyadoo markaasi doonaysa sidoo kale inay ka shaqeyso qandaraaska ay ku soo qaadanayso ama heshiiska ay ku soo qaadanayso ciyaaryahanka la yiraahdo Yuri Tielemans ayaa markaasi sheekooyinka ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta Arsenal. marka Arsenal indhaheedu way furan yihiin suuqa kala iibsigana inay kasoo dukaamaysato xidigaheeda muhiimka ahna ay ceshatay ay markaasi ka shaqeynaysaa. war degdeg ah oo mar dhow soo dhacayna waxa uu leeyahay Sadio Mane waxaa markaasi uu ku biiri doonaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee wadanka Jarmalka isagoo markaa ka dhaqaaqaya kooxda reer England ee Liverpool kadib markii labada kooxood ay isla garteen in ciyaaryahankan reer Senegal uu u wareego dhinaca Jarmalka iyo kooxda Bayern Munich.
labada kooxood ee Munich iyo Liverpool waxay ku heshiiyeen 42 milyan oo dollarka Mareykanka ah sida ay leeyihiin wargeysyada ka soo baxa wadanka Portugal. Ciyaaryahankan ayaana markaa isaga tagi doona kooxda ka arrimisa garoonka Anfield ee Liverpool, waxaana uu ka mid noqon doonaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee wadanka Jarmalka. Mane ayaa markaasi labada kooxood maanta ay ku wada hadleen Ingiriiska 100% heshiiskiisa waa la dhameystiray, waxaana uu qalinka ugu duugi doonaa kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka qandaraas 3 sanadood ah, isagoo markaa tijaabada caafimaadna sida ugu dhaqsiyaha badan ka gudbi doona. Marka Mane waa isku dhamaatay oo waayihiisa Premier League waa ay soo gabagaboobeen, isagoo markaasi bilaabaya jabtarkiisa xiga ee horyaalka Bundesliga Jarmalka. dhanka kalena war degdeg ah oo rasmi ah oo gordhow soo dhacana waxaa markaasi uu leeyahay kooxda kubadda cagta Tottenham waxay la wareegtay ciyaaryahankii kooxda Brighton and Albion ee Yves Bissouma. kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee ka dhisan waqooyiga London ayaa markaa ku dhawaaqday saxiixa Bissouma oo noqonaya saxiixoodii saddexaad ee xagaagan ay ka sameeyaan suuqa kala iibsiga xidigaha. xidiga xulka qaranka Mali ayaana markaasi ogolaaday in uu markaa kooxdaasi Tottenham ugu biiro heshiis soconaya ilaa 2026. xilli ciyaareed oo uu ku qaatay kooxda Brighton and Albion waxaa markaasi uu u saftay tartamada oo dhan Yves Bissouma 123 kulan. 6 gool ayuuna dhaliyay xilli ciyaareedka hadda gabagabada ah ee 2021-2022. kooxdiisa ayuuna ka caawiyay inay ku dhameystaan kaalinta 9aad ee kala sareynta horyaalka Premier League Ingiriiska. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wada xaajood kula jirta ciyaaryahankeeda Memphis Depay, waxaana ay ka wada hadlayaan heshiis kordhin oo ciyaaryahankan reer Holland u sameynaya kooxda Camp Nou ka dhisan, waxaana ay ka wada hadlayaan qandaraas uu markaasi saxiixo Depay kaasoo gaarsiisan ilaa 2025. Memphis Depay ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kooxda Barcelona iyadoo markaasi Barca ay u aragtay xidigaha mustaqbalka ee naadiga. Memphis Depay ayaa heshiiska markaasi ay ka xaajoonayaan kooxda iyadoo naadigu ay dooneyso in qandaraaskiisa ay gaarsiiso ilaa 2025. inkastoo ay jiraan in suuqa lasoo dhigay haddii markaasi dalabyo waaweyn laga soo gudbiyana ay kooxda Barca iska fasixi lahayd, laakiin hadda waxay u muuqataa in labada dhinac ay ka wada hadlayaan heshiis kordhin uu Depay kusii joogaya Camp Nou ilaa sanadka 2025. dhinaca kalena Cristiano Ronaldo ayaa lasoo warinayaa inuu doonayo inuu isaga tago kooxda Manchester United iyadoo markaasi ay ku tartamayaan saxiixiisa kooxaha Sporting Lisbon iyo naadiga Roma ee wadanka Talyaaniga. Ronaldo waxa uu rabaa leeyahay inuu isaga tago Manchester United xagaagan sababtoo ah waxaa lagu soo waramayaa inuu dareensan yahay inuusan qayb ka ahayn mashruuca Erik ten Hag ee garoonka Old Trafford. xidigan weerarka ka ciyaaray ee reer Portugal oo 37 sano jir ah ayaa dhaliyay 24 gool xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee dib ugu soo laabashadiisa Manchester United, laakiin wax waliba waxay qarka u saaran yihiin isbedelaan kadib imaatinka tababaraha reer Holland kooxda Manchester United ee xagaagan. wargeyska Talyaaniga ka soo baxay ee la yiraahdo La Repubblica ayaa markaasi sheegaya in Ronaldo uu haatan raadinayo waddo uu kaga dhaqaaqo United ka hor xilli ciyaareedka soo socda. warbixinta waxa uu wargeysku intaa ku daray in weeraryahanku uusan dareensanayn inuu ku lug leeyahay dadaalka tababare Ten Hag uu dib ugu nooleynayo kooxda markaasi kusoo jirtay xaaladaha hoose xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay. ku guuldareysiga Manchester United ee u soo bixitaanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda ayaa sidoo kale ah arrin kale oo muuqata iyadoo Ronaldo uu galay mugdiga waayihiisa quruxda badan ee koobka horyaalada Yurub. waxay ka ciyaari doonaan Europa League inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka ugu horeeya ee tababare Ten Hag kadib markii ay ku dhameysteen kaalinta 6aad ee kala sareynta horyaalka Premier League. wargeyska la yiraahdo La Repubblica waxa uu sheegayaa in wakiilka Ronaldo ee Jorge Mendes uu markaasi u raadinayo koox cusub iyadoo Roma oo uu maamulo macalinka la yiraahdo Jose Mourinho ay macquul tahay in uu ciyaaryahankani u dhaqaaqo. sidoo kale waxa uu dib ugu laaban karaa kooxdiisii hore ee Sporting Lisbon. Mendes ayaa xiriir fiican la leh Roma isagoo ku qalqaalinaya in mar kale ay midoobaan Ronaldo iyo sidoo kale Jose Mourinho, waxaana halkaasi sidoo kale jooga goolhayaha reer Portugal ee Raul Patricio iyo qadka dhexe ee kooxdaasi ee reer Portugal ninka la yiraahdo Sergio Oliveira, waana arrin kale oo Ronaldo markaa ku riixi karta inuu u dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Roma ee wadanka Talyaaniga. sheekooyinkaas ayaan idinka daba geynayay saaxiibayaal. jimco wanaagsan aan hawada idinka leeyahay. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. muuqaalka hala like gareeya saaxiibayaal. mahadsanidin.